السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل توعان ونسندقيستيال ملك صوتافها عالم كجوكتان halkan waa radio xoriya codka shacabka ogaadeenaya oo aad ka dhageysataan baraha aan ku leenahay internetka sida bogga radio xoriya LSTV ogaadeenet iyo bogga hoggaanka warfaafinta Jowxo. barnaamijka radio xoriya qodobada aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah warkii idaacada iyo khudbadu ka soo jeediyay halgamaa Cabdiqaadir Sheekh Xasan Cadaani Hirmooge dood cilmiyeed ay soo diyaariyeen dowladda waxbarashada ee ururka OSU magaalada Jigjiga dabcan kaalmiisaan halgameedka ayaan meesha ka maqnayn marka hore idaacadeena ku daahfuran aayadaha quraanka kariimka ahaa bismillaahir rahmaanir rahiim qul a'uudhu bi rabbin naas malikin naas إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس allahayna waa anfacaynta waxay nagu dhan aayadaha quraanka kariimka ahaa halka aad nagala socotaan waa radio xoriya codka shacabka ogaadeenaya haatana waxaad ku soo dhawaataan warkii idaacada iyo wariye Shaafi Duulane shir muhiim ah oo ka dhacay magaalada Dhagaxbuur ee xarunta gobolka Jarar hoggaanka warfaafinta jamhadda wadaniga xoreynta ogaadeenay Mudane Axmed Yaasiin Sheekh Ibraahim ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Dhagaxbuur ee xarunta gobolka Jarar soo dhaweyn kadib halgamaaga ayaa wuxuu kulan socday saacado la qaatay maamulka gobolka Jarar ee xafiiska jamhadda wadaniga xoreynta ogaadeenay marka magaceeda la soo gaabiyay loo yaqaan Jowxo shirkan oo ahaa mid ahmiyad lagu saarayay geedi socodka shaqada jamhadda ayaa mas'uuliyiintu waxay ka wada hadleen isku xidhka shaqada gaar ahaan gobolka iyo degmooyinka iyo tuulooyinka hoos yimaada gobolka Jarar sidoo kale halgama Axmed Yaasiin Sheekh Ibraahim wuxuu la wadaagay mas'uuliyiinta gobolka halka marxaladda siyaasadeed ee dalku marayo iyo qorshayaasha horyaala ururka ONLF isku soo wada duubo shirkan oo qayb ka ahaa socdaalka ay mas'uuliyiinta jamhadda wadaniga xoreynta ogaadeenay ku marayeen gobolada degmooyinka iyo tuulooyinka guud ahaanba dalka ogaadeenaya ayaa wuxuu ku soo dhamaaday socdaalkani magaalada Dhagaxbuur ee xarunta gobolka Jarar isagoo oo mas'uulka Axmed Yaasiin Sheekh Ibraahim uu ku soo laabtay meeshii uu ka ambabaxay oo ahayd magaalada Jigjiga waxaa si guul ah ku soo dhamaaday socdaal ay qaar kamid ah madaxda jamhadda wadaniga xoreynta ogaadeenay kormeer ay ku marayeen gobolka Doolo ee dhulka ogaadeenay waftigan oo uu hogaaminayay gudoomiyaha hoggaanka warfaafinta jamhadda wadaniga xoreynta ogaadeenay Mudane Axmed Yaasiin Sheekh Ibraahim ayaa socdaal ku gaala bixiyay qaybo kamid ah gobolka Doolo halkaas oo ay hawlo muhiim ah ka soo qabteen waftigan ayaa shaqadii ugu dambeysay waxay ka soo qabteen degmooyinka Wardheer iyo Lehelo iyo tuulooyin badan oo hoos yimaada degmooyinkaasi waftiga ayaa shacabka ku dhaqan tuulooyinka si mugle ugu gudbiyay fariinta jamhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya ee Jowxo iyo mowqifka Jowxo ee ku aadan nidaamka aan shacabka Soomaalida ogaadeenaya dan ugu jirin ee madamar guntii iyo gunaanadkii waftiga Jowxo ee gobolka Doolo ayaa ku laabtay magaalada Jigjiga ee xarunta gobolka ogaadeenaya waxa degmada Qabdahar ee xarunta gobolka Qorraxay ka qabsoomay shir dhalinyarada OSU kulankan oo ahaa mid muhiim ayaa lagu casuumay qaar kamid ah madaxda Jowxo oo uu kamid yahay Mudane محمد إبراهيم مرسل إيو هالجمع عبد القادر جمادي كدب آيات القرآن فرتان كدينتا أيا الشركة الجبلة كدبنا وحى مسؤولين تو كل دردار من دلنا يردي كسر قيب جش الشركة إنا موتيان من نمو ونا دبر أضايجان هالجن كحلقة شعب كالصومالي ده أجدين يمدد غير كسوتشرين اسكسوا ضوبا الشركة وحامد أهمية جارة وتي مالا بدنا مسؤولين تديرة كساريين أي واحد دلنا يرد كل دردار من إنا يجمعها إسقابصدان دين عن أوجسوا تشنسدان عدو الصومالي ده أجدين si umadu u gaadho masayrkooda ummadnimo aad ayuu mahadsan yahay wariye Shaafi Duulane oo warkeena la socodsiinayay waa ka dhageystayaal haatana waxaad ku soo dhawaataan khudbadii halgamaa Cadaani Hirmooge ee uu ka soo jeediyay kulankii dood cilmiyeedka ee ay yeesheen dalada aqooyahanka ee ururka OSU laanteeda Jigjiga
الله الرحمن الرحيم اللي جوه ريان مودة هي حاجة دفن السودة هي آدي آد بندي سلام يا أنا كفر أحسن ومركي كوبا إن لكل مسامة معلم ماني يريد الله هذا الله يبحي يا ماني قبل الله ها مركوان واجي هاد وان ير حيصد عي واجي وايدين بوحي مرة وحن كفكرين أنا أرضها شام عادة تشجيع مرة لكل ما أما هو سودة تشجيع لأن تنا مقالة ماذا حتى أنا أول بحسن سما مرينا سوي رمروجيان ربي يعني ويا ما أنت كلنا وإلهي مهديات بنو فرح سنة هاي لكن ترى أنت كبرت انتبه لأن يرى أول سيو بحال الله أرض جامعة دقيقة أما لأن يرى كب حذي أما لأن يرى أول سيو أما هير كاس أما دوكس سرد دقيقة أما معاهد داس دقيقة ويبنمرك ويبدين سما مركا لكن هذا مدنا أيام مياه قد يده واجي وروح بلا ما دنين شيل خطر إن السياسة كهذا شو لما شاهد سما لما شاهد غير إن هذا معه كورنتا فرت الصاري وكلهم بيت سما لكن هذا سيد عما نبتقلي هذا هيستان عد كينا هذا اللي كرتان عربة شيدين كرتان وحانس الهين لأن يردوا ضدك وقفهم بدن عند إثيوبيا واحد كسعودنا أوج الدرب الله قبصان كريه ضدك أنا قارب أولي عبصنا أيام مركز على قبل الله يدق موجين كيو way cabsanayaan marka wixii su'aalaad weydiinaysa anigu waan soo koobi shirweynihii hadda inaan qabanay baad weydin shirweynaha maxaan u qabanay shirweynihii kale hal sano baa u dhaxaysay xeerka jabada 4 sano u dhaxaysa shirweynayaasha waxay ahayd shirweynahaas anagoo dagaal ku jira oo dibadda joognaa Eritrea lagu qabtay marka habkan hadda u naalo shirweyne inoo qaabaya qasab ahayd in la qabto marka si fiican buu u dhacay waxa kale ee jabhada u yaallay xiga waxa weeye in go'aamadiisa iyo qaab dhismeedkiisa la hirgeliyo oo deegaanada dhan lagu faafiyo qorshayaasha ka soo baxayna hirgalaan ee ballaarinta ururka ee doorasho u diyaar garowga ee doorasho galida ee doorashada kadib istiraatiijiyad 3 jeer isu daba taala iyo barnaamijka siyaasiga ah ee ku socon lahayn kaasoo Kenya oo xabada laga saaray ona in ay ka talin doonino dadkana inuu dhismo doonayno inuu ismaamulo doonayno inuu muuqdo doonayno inuu go'i kara doonayno inuu dhaqaale ahaan iyo infrastructure ahaan iyo kaabayaal ahaan inuu dhismo aan doonayno inaan doonayno wadada ku socono xoogag badan baa sida aaminsan kuwaana aan waan ka hadli doonaa hadii aliyaado marka shirweynu saas waha marxaladda hadda ku jiro marxaladda isfidinta insha Allah gobolada waa la tagi doonaa gobollo aan waagi kormeerkii gudoomiyay uu hogaaminayay aanan ku tagin baa jira gobolada hadda la tagaya hadii aliyaado gobollo in yar laga marayna hadda lagu noqonayaa oo ay faafan meelo kamid tahay Liibaan iyo Daawo iyo muxuu ahaayay gobolka Shaneele iyo gobolka Eerna aad looma marin iyadana intaaba in hadda dib u maro oo dadka Soomaaliyeed runtii isu sheegno wali idinkii dhalinyarada wax bartay baa siyaasadda sidaan uga cabsan islaan ay la joogto maxaad marka ruuxu kolku jaahiliyan wax ka naf jecel kolku ruux qof kolku wax badan adduunka u fidneen waa wax naf jecel oo xoolo jecel oo wixii jecel oo is ururiye way qofka markuu maskaxda ka xoroobo geerida kama cabsado oo dhibka kama cabsado oo xaq inuu sheego kama cabsado marka dadkeena waxaan rabnaa inaan qafiska in saabka madaxa loo galiyo jahliga aan ka siibno waa laga siibi karaa kuwa ariga la joogo kuwa beerta la joogo kulli waa laga xoreyn karaa maskaxda iyo qalbiga hadduu ka xoroobo isaga dhagax jabin karay dadka markii la taabaro Soomaalida arag kuwa indha yarta dadka ugu lafiyay adduunka kuwa inta korboodaan oo dhagax kala jabin qac ka sii Soomaalida arag ku xoog weyn oo Amerikaan hadii loo dhibo baf uu jabi laakiin kaas waa la taabaray qofka hadii maskaxda laga diyaariyo wuxuu jari karaa marka dadkeena inaan xoreyno oo idinku xoreysaan way idinku xoreysaan xaalka Ethiopiana idinka af xabashiga ma aqaan in yar oo cayaan ka aqaan kolka xaraqan way kala fakata marka idinka og basoomaha iyo afafka qoomiyadaha kale af oromada iyo af xabashiga idinka yaqaan soo waxa ka socda waad la socotaan laakiin dadkeena waxaan arkaa dhinaca lukaha xaqo ololka ka mari waa in laga sheeg dadkeena waxa Ethiopia ka socda aad lama socda waxaad ku garanaysaan
lixdii sano 10kii sano u dambeeyay Ethiopia soo bedelaysa 20kii sano u dambeeyay inta ina haysatay IPRF Ethiopia soo bedelaysa dadkeena hal meel ku dabranaa iyadoo Addis Ababa meelas laga caayo oo leeba lagu soo qoray asoo lacag xadayo oo eeg daanyar yar oo saas oo yaa lagu soo sawir journalka halka ninkii meelas dhax carabka laga jiray xaga leeba lagu marka dhaafta adaridan dadku waxbay ka qorayeen waa la hadlaayay waa la caayay dawladda waa la leeyahay halkan ma soo gashaa Ethiopia hada iyo taa inta isku darin baa lagu dilaayay war ayaan darabada marka inaga waxaan Ethiopianka nin dhakhtar wuxuu yiri isbitaalada kililkeen Somali State kilil yaandhe Somali State dhakhtarada 30 sano ka dambeeyay dhakhtarada Ethiopia dadkana inta ay lagu ka dambeeyay maamulku inta ay lagu soo dambeeyay ka dambeeyay waxbarashada soo dambeeyay ka dambeeyay jideedku soo dambeeyay ka dambeeyay siyaasaddu soo dambeeyay ka dambeeyay dhaqaaluhu soo dambeeyay ka dambeeyay marka sidaas in uga dambeeyay hadda waxa Ethiopia ka dhacaya dadkeena wuu gali laayay ma ka dareenteen sidaas ma ka dareenteen hadda markaan gobolada joogno waanu idin taageer lahayn inaad calanka duubataan baanu ka baqay welile war haddaan naga duubataan idinku yani dad quick ma aha dhaqso sababtoo ah Ethiopianka sida inaan ka dambayno inoogu talagalay marka dadkii ka saari lahaa ritigu hadduusan garwadaan lamiyo soconi ritig reer badan wado dahab wado lacag ka buuxdo miyo socon soo ma socdaa nin yar oo dhalinyaro ma hadduu qaba marka kurku waa dadka aqoonta leh iyo idaacadda iyo journalka iyo qalinka iyo TV-ga iyo jaamacadda iyo guddiga muxuu ahaa cilmi baarista iyo xarumaha wax malihin ma qolo meeshana waa dhaweyd sameysay muxuu ahaa shirkan meesha ka qayb gal Somali Intellectual for qolo meeshana maal shir noo qabatay fiicneed hadda is abaabuleen intii hore way cabsanay waa gartood laakiin TV-gu inuu maartay xaflado shirarkooda soo qabto dooday qabtaan ay qabtaan jaamacaddu hadasho jaamacadda jiwaayadii u horeysay baan waxaan soo nimid Addis Ababa Hilton bay ugu yimaadeen dabarka iska furan ku intaan dawlad bala dhisan hadla oo dadka xoreey oo dood qabta cilmiyeed oo dhalinyarada ka halsiiyo oo cilmi baaris sameeya dhaha oo qaybta af Soomaaliga iyo culture-ka Soomaalida horumariyo oo journal soo saara 3 bilood oo cilmi baaris Soomaalida ku sameeyo waagi leedin dilaya ma jira dadka ka horeeya laakiin hadii aqoonta ay dadka ka dambayso waan jabayna marka dhalinyarada xilka laakiin wasiir aad uma idin ma galay xilka idin saarayay Soomaa haddaan Soomaali nahay danta guud baan ku xunnahay qof haddaan nahay waa heer sare waxbuu baran reer buu shaqaysan reer buu dhisan waa dhag way dan caama loo yimaha waxba tara weeyaba xabashidu cagsigeena way danta guud bay ku fiican tahay qof mid wada failer way laba isfurtay iyo mid hooyada xaga waxa iyo aabihii shilin aan siin waxaad arkay dibadda joogaan nala joogaan $500 buu xisbi siinaya aabihina $50 buu u diray inaga cagsi waa najafada lacag soo sibaldhiyo $50 buu bixin reerkooda soo degeena $1500 buu u diray cagsi ma xagaasaan isku nahay had yar danta caamka aan ku xunahay oo danta qofka reerkiina waxay kula talino berba adeerka yaa warqadii soo qoray markaan duur ku jiro wuxuu yiri waxa la sheegay inaad markii dagaalamay kuriga aad hor orduuni ma xagga dambe martid soo qoray danta caamka inuu haddaan reer kale istireen war yaa hor u galbu dheel haddaan ma reer istireen safka hor gal laakiin hadii dan guud tahay looma ooyaankaas horay ha u ordin aayar hooyo ma arti dawladdu iyo isha kugu qaban saambay hooyaduna waa dhaqan way marka dhaqanka inaan qaran kaga xorowno oo aqoonyahan ka xoroobo oo danta guud inay dantaada aad ka dhaxaqido muxuu dhaqaalahan horumar laaya waa dhaqaale aan muxuu ahaay aan aaba lahayn way waagan dhashay hooyadii dukaan bay lahayd lacagtanadu ma dhaafto 20,000 bir soo jiita Hargeysa laba ariya gees oo noqo in macawsaa soo gad sii soco bangi ma jiro ama ma jirto investment ma jiro warshad ma jiro waxa ma kordhaan waa maxaa la circle soo gugi inta roobku doo xooluhu guraan hadana irmaadaan hadana gugi circle kaan baan ku wareegnay 4 neef Hargeysa gees soo noqo shaarsi bangi milyan dadkeen saa lagu ma noolaan karo lix jecla aabalaan buu dhaqaalaheenu horumar laay وهذا كهر واني يدين شيء وكوريد محوها ذاتك أبسينيان كليدا كل كان بنان كاتشوغن إنك ككرتبض
galaaska kolkii la joogo mooy eega saatiin laakiin anaga ka dhibca badan sooma kolkii qof liya suuqa la joogo inaga ka soo wax saar badan qoys markii la yiraahdo inaga ka muxuu ahaa hal abuur badan kolkii la qaxay reer galbeedka tagay axmaar qura oo dawladda hoose ka shaqeeya arkay Soomaali wasiir arkay Mareykan Soomaali wasiir bahalkiya dalalka reer galbeedka dhaqaalooda xoog badan yahay moolal Soomaaliya mool ama shopping center meel yahdo Soomaaliland Melbourne bay ku yaalaan Minnesota ku yaalaan San Diego ku yaalaan London bay ku yaalaan suuqa dhan oo suuq Soomaaliya Afrikaanka oo dhan hadda suuq ugu dhan Soomaalida suuqa Soomaalida Afrikaanka oo dhan baa ka gata alaabta cuntada iyo Carabta iyo Muslimka anaga hadda inaga center hadda iyaga axmaar cooshad furan kara ma leh xafiisyada Soomaalida ar markii meesha biirooga u bixiyaan markii la isla galo zimbal adii salaan baa taay mu koorano kaliya wax garanay marka xal saaraha la inaga haysto waxaan u baahanahay inaan la wareegno oo qalinkeenu shaqeeyo oo inagu faaleen TV qura xabashida faalay waan la xabashida way kala jajabtay way habeen walba inaga doodan Soomaa kuwa habeen doodayo wuxuu lahaa waa in la baabi'iyo isaad baa laga dooday markuu wuxuu yiri waa in liyu boolisiyada waa in la baabi'iyo waasaqan Soomaalida way laayeen kuwa axmaaraduna waxay laayeen taliskii waxay dileen ismaamul madaxdii gobolka axmaaraday dileen madaxweynihii iyo kii kale dileen kuwa Soomaaliduna kumaan ku baylaayeen liyu boolis waa in la baabi'iyo inaga laba intay isu timaado afxabashi intay jijabisa tira inteen xabashida waa in xagga loo gooyo tan kale inagu baayna faalanaya wax ma faalan karo waa horaan ku wari xukuumadda Soomaaliya dadka madaxa uga kaco ha hadlaan xabashida kolkay naga hadasho 5 jeer aan ka hadalno kolkayna faalayso 6 jeer aan faalayno kolkay soo fadhiisa dhowr bidaar intaan soo fadhiisay una ma garanaysaa aan soo fadhiisino marka laakiin hadduu aqoonyahanku danaysto u noqdo afartiisa xaraf meel lacag oo geyn hadduu daydo waa dhaweyd researcher baan sameeyay raalaad hotel halkan deganaa 5 arday ay timid 18 kamid waxay baranayaan accountant saddexna waxay ahayn engineero laba midna dhakhtar baha midna nurse baha waxa science baranayo dhan uu ku yaraa accountant ma digriya waxaan dibadaha yar college yar iyo 2 sano iyo waxaas inuu yahay accountant inba waa lacagaad Soomaa waan fakaro waan yaa accountantigan maxaa dadka ciyaalka ku ibtiliyaan markaas waxa la yiri lacagtu ka ag dhawaan idan waa tababarkii tuuganimada Soomaa saad waxa meeshaad ku soo tababaraya inaad leysan u heshay inaad tuug noqoto shahaado inaad u qaadato inaad wax ma waxaan ka lacagta qaybiya waxa ka mushaar ku qaybiya engineer wuxuu qaataa laba accountant mushaarka Soomaa intaad ka qaybinaya baashan qurumada xabashida qorqor lacagta Soomaa urkeeda wasakh bandina lacagta baashan xunta tirinays kuwa loo tirinay ma noqoto baan kuwa loo tirinay meesha dhanba intii la mariyo mushaarka badan qaato kuwa science-ka bartay engineerada iyo dhakhaatiirta iyo geologista iyo beer yaqaanka iyo xoolo yaqaanka iyo lacag badan bay qaataan waa science-yahan Soomaa marka kuwa arrimaha bulshada bartana siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo horumarka administration-ka bartaan xisbiyada noqdaan oo siyaasad bay galaan oo waxbay dhisaan oo adduunka ay bedelaan iyana Soomaa waxa ciyaalkeena accountant-ku ku ibtilay sababtoo ah waxa weeye in lacag xadno oo lacagta caruurteena iskuuladeena waa darteen hadda si shacbi hadaan soo horumarin weyno dawlad cirkanta inooga timaad in horumarin ma jirto macallin baan weydiiyay jooga Addis Ababa lectural baan ka hayay Addis Ababa ka warama ku jaamacadda Ethiopia waa useless buu kolkaasaan most useless waa xagee waa Jigjiga buu waa jaamacadda Jigjiga bayana Patros ba odayga macaaradka maxaa hadda qabataan lectural baan mar baan wax dhigaa waan duqoobay marka jaamacadaha ka warama Ethiopia meelis jaamacado badan buu dhisay waa useless buu inta madax galki meesha ugu daran waa meeshii kolka waynu jabi hadaan sida ku socono inaan waxbarashada dhisno oo ay ardaydu wax isbaraan oo iskuulada macallimiin Soomaaliyeed ma joogto waxaan tagay dhowr dugsi ku yaala muxuu ahaayay Sheegoosh dugsi dhexe iyo dugsi saraanti hal Soomaaliya ma joogo
hal Soomaali ma jiro waxa kaloona arkay qabridahar islaani wiil isla hadlayaan dhageysta hooyo ballam ilaahay inaan iskuul ku noqonin waasay leedahay hooyo bishaawnayso hadaan ku gadi waayo 3 galaas hadaan ku gadi hebel waa la boodsiiyay ballam allaana tagayn buu iskuul ku noqonin hebel oo iskalaas ahayn 2 galaas buu hadda cirka jira markaas waxay leedahay hooyo bisha ay dul qaado wax yar baan ururin hadaan ku gadi waayo nasabka kuma banaani ay leedahay والبهارك يا هيا هذا روح ديكسي وحكو كرسن لا دوليلنا يعني روح لا انتو كتاغنا اسلا غوينيو ku faraxsan hadana waxa kale imtixaan keenay la sheegay imtixaamiyadii waagi qola gabadh ba sheegay soo wacdo hebel way uu xiran yahay maxaa loo xiray asagoo rabay ruux imtixaan u galo yaa la xiray war waxayna haysta bal fiiriya meesha aynu meeshu nabar ku gaaray fogidiisa baleeg waxaan leeyahay xabashidu meel waxba nagaga tagin hadaad rabto ummad inaad baabeesho waxbarashada in lama buufiso laguma buufiyo dhaqanka iyo waxbarashadu baa laga baabiya deedna way baabi chaadka aad u cuni khamrada aad u cabi feeran maayaan way niyad durba way niyad jab qofku wax baran way wax nugul moogto durba way niyad jabi durba way isdhiibi durba way maxaa gabadha waxay leedahay inaga qoladan waa la nagu tijaabiyaa maxaa loo tijaabiyaa qolada ugu dhagan nugul baana qolada ugu dhagan nugul baynuna ee ugu immunity-ga jirkooda difaaca jirkooda difaaca siyaasiga iyo midka nafsiga haysana aad u hooseeyo walka dawladdu kolkay ku yaala iska yarbixisa saatira intin marka xabashada kaadun baa inagu soo istaagayba ay markay soo yirisa hay gaa nin xisbigana wuxuu yiri on la fiyo aan isku darsan xisbiga Soomaalida marka idinkuna waxbaad naga faa'iideysaan anaguna waxbaad ka faa'iideynaa maxaad naga faa'iideysaan baan wuxuu yiri geesinimada idinku maxaad baraysaan wuxuu yiri waxaan baraynaa systemka Ethiopia waxba kama taqaana waan baraynaa markaas aan waayay laba qodob ka reeba systemka ha ku darina laba qodob midna aan barana ish iyo abeed markii lagu yeeray abeed kash labada ilaahay baan ku dhaashay hana barina ku uri dadka nagii bay la hadheen labadaas hana barina kolka arkaysa maqlaysa waad garanaysaa waxa danteena Soomaali wax bartay oo dhalinyaro oo isku kalsoon oo geesi ah oo xuquuqdiisa yaqaana oo dhulkiisa yaqaana qowmiyadda ugu dhul weyn baan hadda oromada waxaan ka soo reebay inaan qowmiyadda ugu dhul weyn baan inaan ka dhul weynahay dhageystayaal guud ahaanba waxa inta inagu dhan idaacadeeni radio xoriyo intaynu mar kale barnaamijka mid lamida ku kulmi doono waa anigoo Saki Sheer Cabdiya iyo asxaabtii kale ee ka qayb qaadatay barnaamijka idin leh sidaas iyo nabadgeliyo